ismaqal iyo daawasho wanaagsan oo markaan qodobada ugu xiisaha badnaa Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah ra'iisul wasaare Khayre oo isbitaalka ku soo booqday askartii ku soo dhaawacmeen Awdale beesha caalamka oo laba qodob oo culus hordhigtay Axmed Madoobe iyo jawaabta la siiyay saraakiil Itoobiyana oo Kismaayo tagay lagana diiday laba qodob ay Axmed Madoobe hordhigaan aqoonsiga wasaaradda dawladda federaalka Soomaaliya oo mar kale laga joojiyay wadada filla Soomaaliya ciidanka kumaandoosta Soomaaliya oo howlgal ka bilaabay Tooro qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan hadduu eebin markaani u diyaar garooba qodobadaas oo intaasi ka faahfaahsan aynu ku bilownay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa isbitaalka ku booqday askartii ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka ee shalay ku dhaawacmay weerarkii argagixisadu ku qaaday saldhigga ciidanka ay ku leeyihiin degmada Awdale ee gobolka Shabeellada Hoose ra'iisul wasaaraha ayaa maamulka isbitaalka ka xog wareystay xaaladda caafimaad ee ciidanka naftood horeyaasha ah ee ku soo dhaawacmay ilaalinta iyo badbaadinta nafta iyo maalka ummadda Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya ayaa ciidamada qalabka sida u dirtay qorshe daryeel caafimaad oo dhameystiran waxaana booqashada ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ay ka qayb tahay dadaalada lagula soconayo xaaladda caafimaad ee dhaawacyada laguna dhiirigelinayo ciidamada qaranka oo dhan askarta isbitaalka ku jira oo qaba dhaawacyo fudud ayaa ra'iisul wasaaraha ugu mahadceliyay booqashada iyo dhiirigelinta waxayna ballan qaadeen in marka ay soo bogsadaan ay si dhaqso ah dib ugu laabanayaan furumaha dagaalka si ay qayb uga qaataan xoreynta dalka oo dhan mudane Xasan Cali Khayre oo ciidanka dhaawacyada qaba u rajeeyay in ay si dhaqso u bogsudaan ayaa askartii ku shahiiday difaaca qarannimada Soomaaliyeed Allah ugu bariyay in uu shahiidnimo ka aqbalo ra'iisul wasaaraha ayaa guud ahaan saraakiisha iyo ciidamada qalabka sida ee furumaha dagaalka jooga ugu mahadceliyay dadaaladii isdaba joogga ah ay ugu jiraan soo afjarka kooxaha argagixisada ah ee cadeystay gumaadka ummadda Soomaaliyeed wafdi ka socday dawladda Itoobiya oo ka koobnaa 6 sargaal ayaa shalay tagay magaalada Kismaayo halkaasi ay kulamo kula qaadanayeen madaxweyne Axmed Madoobe iyo madaxda kale ee maamulka sida ila wareedyo lagu kalsoon yahay ay u xaqiijiyaan caasimada online wafdigani oo horay u soo maray magaalada Muqdisho ayaa maamulka Jubbaland kala hadlay xiriirkii xumaaday ee dawladda iyo doorashada madaxweynaha oo dhawaan ka dhacayso Kismaayo sida aan xogta ku helnay wafdiga ayaa madaxweyne Axmed Madoobe hordhigay laba qodob oo kala ah in mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya oo horay loogu mamnuucay Kismaayo loo ogolaado in ay yimaadaan isla markaana wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya ku lug hanaanka doorashada Jubbaland in dib loo dhigo doorashada madaxweynaha Jubbaland si musharaxiinta mucaaradka loo siiyo waqti dheeri ah oo isku diiwaan galiyaan kadib markii uu dhamaaday waqtigii horey loo qabtay ayaga oo diiday inay isdiiwaan galiyaan ila wareedyo ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa caasimada online u sheegay in wafdiga Itoobiya loo sheegay in labada qodob ay yihiin kuwa ka baxsan gacanta madaxweynaha oo uusan wax ka qaban karin waxa lagu wargeliyay in go'aanka dhanka ah dawladda lagu qaatay kulankii golaha wasiirada sidaasi darteed aysan ahayn arin uu wax ka bedeli karo madaxweynaha halka go'aanka la xiriira waqtiga doorashada la sheegay uu yahay mid u yaala guddiga doorashada oo haddii ay doonaan ay kala hadli karaan wafdiga Itoobiya ayaa isla shalay galab iskaga tagay Kismaayo kuna laabtay Addis Ababa waxaana la sheegay inay ahaayeen isku daygii ugu dambeeyay ee dawladda federaalka Soomaaliya ay ku hor istaagi lahayd doorashada Jubbaland taasi oo hadda muuqata in aysan shaqaynayn waxaa si ku meel gaar ah loo joojiyay in wadada hormarta madaxtooyada Soomaaliya lagu soo maro aqoonsiyada wasaaradda xukuumadda Soomaaliya gaar ahaan shakhsiyaadka wata gaadiidka noocyada kala duwan mas'uuliyiin ka tirsan shaqaalaha dawladda oo wata gaadiidka raaxada ayaa caasimada online u sheegay in laga soo bilaabo daraad ilaa iyo maanta la diiday in wadadaasi ay hormaraan gaadiidka shaqaalaha dawladda dhammaan wadadani hormarta madaxtooyada Soomaaliya laga mamnuucay gaadiidka balse waxaa kaliya laga diiday in ay ka soo galaan kontaroolka godka jilacow lamana oga sababta arrinkaasi keentay lama filayo in go'aankani uu ka soo baxay ciidamada koofi guduudda ee madaxtooyada balse waxaa la aaminsan yahay in uu yahay amar kale oo ka yimid hay-adaha amniga Soomaaliya isla markaana ay qaadan doonaan dhowr maalmood warar kale ayaa sheegaya in ay jirto digniin dhanka ammaanka oo ay soo saareen saraakiisha ammaanka Soomaaliya taas oo sheegaysa in al-shabaab ay qorsheynayaan in ay weerar ku qaadaan xarunta
godka jilcow ama kontaroolka laga galo godka jilcow ee taalada daljirka daasoon. shaqaalaha wasaaradda dalka ee gaadiidka wata ayaa maanta iyo shalay ka soo wareeganayay dhanka ceelgaabta, waxaana dhacda in wakhtiyada qaar halkaasi loo diido. al-shabaab ayaa horay weerar qarax ismiidaamin loo soo adeegsaday waxay ku qaadeen kontaroolka godka jilcow iyaga oo halkaasi ku dilay dad badan oo shacab ah, waxaana dadkaasi ku jiray faadumo cali raage oo ka mid ahayd saraakiisha militariga Soomaaliyeed. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa xarunta madaxtooyada ku qaabilay wafdi ka socday beesha caalamka oo uu hogaaminayo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan. waxa kale oo wafdiga ka mid ahaa xubno ka socday IGAD, safiirka midowga Afrika ee Soomaaliya, taliyaha guud ee AMISOM iyo xubno kale. kulankani waxaa lagaga wada hadlay hanaanka ay u socoto doorashada Jubbaland iyo sidii ay u noqon lahayd doorasho xor iyo xalaal ah, lagana fogaado wax kasta oo keenaya foodo iyo amni daro. ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa madaxweyne Axmed Madoobe hordhigay laba qodob oo beesha caalamka ka doonayso in la fuliyo, kuwaasi oo kale ah in fursad iyo waqti dheeri ah la siiyo musharaxiinta mucaaradka si ay isku diiwaan geliyaan ugana qayb qaataan doorashada, iyo in wax ka bedel lagu sameeyo shuruudda lagu xiray musharaxiinta tartamaya xilka madaxtinimo ee Jubbaland. madaxweyne Axmed Madoobe ayaa xubnahani ka socda beesha caalamka u sheegay in uusan isagu sharciyad u lahayn wax ka bedelka jadwalka doorashada, isla markaana taas oo ay tahay shaqada guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka. ugu dambeyn waxaa la isku raacay in guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka ee Jubbaland laga sugo jawaab kama dambays ah ee la xiriirta hanaanka doorashooyinka Jubbaland. ciidamada dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwooda kumaandoosta ayaa waxay howlgallo ka dhanaa al-shabaab ka bilaabeen tuulooyinka duleedka deegaanka Torotoro ee gobolka Shabeellada Hoose, halkaasi ay ku sugan yihiin xubno ka tirsan al-shabaab. mas-uuliyiinta maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxay sheegeen in howlgalkaasi ay ciidamada ku doonayaan inay shabaab uga saaraan deegaanka Torotoro iyo tuulooyinka u dhow oo ay ku xoogan yihiin al-shabaab. gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay ka go'an tahay in gobolka laga saaro al-shabaab, isagoo u mahadceliyey ciidamada dowladda ee howlgalka wada. ciidamada kumaandoosta Soomaaliyeed ee danab oo howlgal ballaaran ka wada deegaanka Torotoro iyo deegaano kale oo ay ku sugan yihiin al-shabaab, sidaani horay ugu ballanqaadnay shacabka gobolka Shabeellada Hoose ee koonfur galbeed, waxaan gobolka ka ciribtiri doonaa al-shabaab insha Allah, ayuu yiri gudoomiye Najax. howlgalkani ka bilowday duleedka deegaanka Torotoro ayaa wararka ka soo baxaya gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose ayaa wuxuu ku soo aadayaa xilli dhowaan ciidamada dowladda la wareegay degmada Owdhaale, isla markaana shalay al-shabaab ay ku soo qaadeen weerar qaraxyo ku bilowday.